السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن ardaygan wuxuu leeyahay macalin aad ayaad u mahadsantahay. Waxaan rabaa waxaan iskaga khaldan buu yidhi present perfect iyo past simple. Sorry haddaan ka soo dahay. Marka waxaan isku dayay inaan ku fahamsiiyo hadduu ilaah yidhaahdo. Marka present perfect against simple past. Present perfect is used for an action which has just completed or finished. Marka wax kale ma ahan waxaa loo isticmaalaa present perfect wax dhammaaday waqti dhow. Yacni shaqaad haysay, shaqadii waa dhamaysay. Tusaale, shaqadii markaad dhamaysay waxaa dhahday I have just finished my work. Shaqadaydii hadda erte ama hadda dhow ayaan dhameeyey. Yacni waxa waaye shaqaad haysay, shaqadii waa dhamaysay. Markaasaa waxaa dhahday I have just finished my work. Hadda erte ama hadda dhow ayaan dhameeyey shaqadaydii. Tusaalaha kale, I have just played football. Haddeerte ayaan waxaan soo cayaaray banooni. Tusaale, dhalinyarta banooni aad u jecel yihiin. Ka soo qaad banooni aad soo cayaartay ama kubadda cagta aad soo cayaartay. Markaad banooniga aad dhamayseen oo yacni labadii kooxood ay wada badiyeen laga kala tegey ayaa waxaad dhahday I have just played football. Aniga hadda waxaan soo cayaaray banooni. Okay, tusaalaha kale isla present perfect haddii tusaale kale aan soo qaato si aad ugu fahamto. Ka soo qaad cashar aad qoraysay, casharkii waad dhamaysay. Waxaad leedahay marka I have just finished my lesson. Ama cashar aad qoraysay, qorisiis waad dhamaysay. Ama waxaad leedahay I have just written my lesson. I have just written my lesson. Casharkayga ayaan hadda dhow ayaan qoray. Marka simple past aan aadno waa isbarbardhigaynaa. Marka simple past marka asaga kan wuxuu kaga duwan yahay. Waxaa loo isticmaalaa wax waqti hore dhahay, wax yacni wax la soo dhaafay. Waxay noqon kartaa isbuuc, waxay noqon kartaa hal maalin ka hor, waxay noqon kartaa 2 maalin ka hor, waxay noqon kartaa sanad ka hor haddii loo baahdo. Marka tusaale, I played football last week. I played football last week. Isbuucii la soo dhaafay waxaana cayaaray kubadda cagta. Kubadda cagta waxaad cayaartay isbuuc ka hor aad cayaartay Soomaan. Laakiin saka kale present perfect wuxuu ahaa I have just played football. Aniga haddeerte waxaan soo cayaaray kubadda cagta. I have just played football. Waxaan soo cayaaray haddeerte kubadda cagta. Ileen waa waqti dhow. Banooniga markaasaad soo cayaartay waa dhamaysay. Cayaarta markay dhamaatay ayaa waxaad dhahday I have just played football. Laakiin simple past waa ka duwan yahay. Waxaa waaye isbuuc horaad soo cayaartay, waa wax la soo dhaafay. Past time waa waqti hore la soo dhaafay. Marka haddii aan kugu celiyo present perfect si kooban waxaa loo isticmaalaa wax markaas shaqo oo markaas dhow dhamaatay, wax oo yacni dhammaaday isla waqtigaas. Yacni wax waqti dhow dhammaaday waxaa loo isticmaalaa wax ama shaqo dhammaatay waqti dhow. waa soo dhamaysay. Markaad dhamaysay ayaad ka hadashay. Waxaad dhahday tusaale banoonigaa soo cayaartay, waxaad dhahday I have just played football. Hadda waxaan soo cayaaray kubadda cagta. Simple past-gana waxaa loo isticmaalaa fal past time ka dhacay, waqti la soo dhaafay dhacay. Tusaale, I played football last week. Waxaan cayaaray kubadda cagta isbuucii la soo dhaafay. Waxaan cayaaray kubadda cagta. Marka waxay ku kala duwan yihiin. Waad garataan u malaynaya sida ila tahay. Insha Allah waad ku mahadsantahay su'aashaada. waa mahadsantiin dhammaantiin inta daawanaysa casharkan. Please haddii aad ka faa'iidayso subscribe garay channelka, asxaabtan la wadaag share garay.
وإنه عشر كحكة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا، جوهرنا هنا في القلب لا 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 لا، نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا، ذاك جمالنا يسمو يتعالى.